madaxweynaha dalka Xasan Sheekh soo laabashadiisa kadib wuxuu bulshada Soomaaliyeed u muujiyay in dawladdiisa ay al-shabaab la dagaalami karto guul diiwaanka u gashana uu ka soo hooyin karo gulufkaasi wuxuuna markii uu dagaalka ku dhawaaqay uu sheegay in maalmo kooban ay u hareen al-shabaab nimankaas shabaaba la yiraahdo maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa koow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda inkastoo dagaalku uu dardar ku bilowday haddana maanta oo marka uu gulufkaasi iclaamiyay laga joogo muddo 3 sano iyo 2 bilood ah ma jirto wax natiijo ah oo la sheegi karo al-shabaab waa ay soo rogaal celiyeen deegaanada laga qabsaday iska badaaye waxa gacantooda galay deegaano iyo tuulooyin caasimada u jira 40 kiiloomitir walaacaasi oo jira madaxweynaha uma muuqdo mid fashilkaasi dhaawac ku ah qiimkiisa wuxuuna waqti badan ku bixinayaa safarro aan macno badan lahayn waana tan keentay in shacabka iyo xubno ka tirsan baarlamaanka qaarkood ay baafiyaan madaxweynaha dalka arka weyn ma jira madaxweyne wadan dhan oo dalkiisii dagaal oo ku jira oo qalimo la haysto oo basrar la haysto oo muxuu ahay 30 kiiloomitir 40 kiiloomitir meel ku jirta cadow oo ku joogo oo madaxweynihiisa meel lagu sheego aan la arag sida ay qabaan dadka amniga falaqeeya soo laba kacleynta al-shabaab iyo dib u gurashada ciidamada waxa loo sababaynayaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin qorshe xumo iyo istiraatiijiyadii dagaalka oo la marin habaabiyay faragelinta baahsan ee ka imaanaysa dadka uu madaxweynuhu u wakiishay saadka ciidamada oo badankood ehel dawla ah madaxweynaha taas ayaa iyana xaaladda sii adkeynaysa niyadjabka ay ciidamada ka dhaxleen dilalkii saraakiishii howlgalka udubdhaxaadka u ahayd oo aanay jirin cid lagula xisaabtamay ayaa qayb ka ah waxyaabaha weeqay gulufka sidoo kale doorka dagaalka ee ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda oo aan si dhaba loo ogeyn taas oo lagu daray duruufaha dhaqaale ee hareeyay raggaasi oo xoolo dhaqato ah ayaa iyana culays abuuraysa kiista kale u weecinta dhaqaalihii gulufka oo xooggiisa siyaasad iyo doorasho aan loo dhammayn loo adeegsanayo ayaa caqabad kale ku noqonaysa dawladda qodobadaas oo aan feejignaan laga muujinayn ayaa noqday kuwa soo dadejiyay fashilka uu dul hoganayo gulufkii uu madaxweynuhu kala hor iclaamiyay waxaana dib u dhacay talaab walba oo horey loo qaaday si kastaba waqtiga u haray madaxweynaha oo aad u kooban ahna 10 bilood waa mid koobaysa rajada laga filan karo in dawladdiisa ay libin wax ku oola ka gaarto dagaalka ka dhanka al-shabaab taas oo gulufkii Xasan Sheekh ka dhigaysa hal bacaad lagu lisay